Assalaamu calaykum walaalahayga qaaligaa soo dhawaada waa walaashin Warda Cooking oo mar kale soo laabatay. Maanta waxaan idin sidaa keeg tiramisu la dhaho. Waa keeg fudud, qabow, maasha Allah, macaan oo maaragtaan kaaga baahnayn wax in la kariyo. Buskudkaas ayaa laga sameeyaa lady finger aa la dhahaa. Waa buskudka laga sameeyo tiramisu. Halkaas waxaan ku haysanaa karamela aan guriga ku samaystay. Halkaana waxaan ku hayaa kareemka maaragtay oo toortaha lagu sameeyo. Waa whipping cream ama visbagreeda sida anaga u naqaano. Halkaana waxaan ku haystaa mascarpone. Halkaana waxaan ku haystaa saxan maxaa la dhahaa kafeegaasaan ku haystaa oo maaragtay kafeega caadiga Nescafe waaye. oo kafeega degdega ku dhalaalo waaye. waxaan uga baahanahay kafeega 2 qaado asxaabe isla socod wanaagsan. qaadadaas labadeeda ayaan uga baahanahay. saxankaasna waa u baahanahay, waa saxanka keega ku samaysanayno. marka isla socod wanaagsan kafeega saxankan ayaan ku soo qasanaynaa asxaabay. 2 qaado ayaan uga baahanahay. marka isla socod wanaagsan biyana waa ii karkarooyaan dabka ii saaran yihiin. marka biyo qandac ayaan ku dhalaalsanayaa si maaragtay hadhow aan buskudka ugu daadaarto. marka isla socod wanaagsan idinkaga hordhici maayo. waa kan waxaan soo qaatay biyo kulul, waxaan ku shubanayaa maxaa la dhahaa kafeegiyaan ku kor shubayaa si uu igu dhalaalo. haddii aan u dareemo inay biyaha igu yar yihiinna waxaan bahashaas geeska qalinka ayaa waxa igu jira maxaa la dhahay biyo karkaraya iyadana igu karooyaan. marka digsigana waan ku karsanaya. marka digsiga waa ila yaraaday taasaan sii saartay waan ku kor darayaa. waayo kafeega inuu adeeg noqdana ma rabo, saaid iga batana ma rabo. marka biyo waxaan ugu darayaa maaragtay inaan kafeegina ku qafiifiyo biyo badan oo isaga baahanahay. marka kafeega markaan soo qasano intuuna iisoo qaboobaya kafeega waxaan maaragtay samaysanaynaa maxaa la dhahaa kareemkii. waxaan soo furanaynaa mascarponaha iyo kareenkaas ayaan isku soo dul furanaynaa. labadooda isku soo shubanaynaa si aan usii qasano usoo diyaarsano. kan waa kareenka toortaha la mariyo. kan kalena waa cheese ama maaragtay farmaajo sida u taqaanid ama oost oo kareem ah. waa cheese oo kareem ah ama farmaajadii oo kareem ah. marka labadooda waxa la isugu daraa farmaajadan ma lahan maxaa la dhahaa wax dhadhana male, walaa sokor walaa dhanaan midna ma lahan. marka labadooda way isbaaseynayaan. marka labadooda la isku qaso halka waxa ka soo baxaa kareen adaga ka soo baxay. dhadhankiina kaama wareerinayso adiga hadhow sokorta intii aad rabto ku darsanaysid. marka isla socod wanaagsan intaas oo isku soo darsanayna. kareenka intaadan furin ka hor waa inaan ruuxdaa asxaabay. waa la ruuxaa waayo ma aqaano waxaan u malaynaa inuu kala degayo oo halkaas waxa ka dhacay shil yaroo gaaban ilaahay nagu shartire. wax saas weyn ma dhicina caagida baa iga dhacday. marka halkaasaan kusoo furtay kusoo shubtay. mashiinkaas ayaan kusoo qasanaynaa. mashiinka marka muhiim maahan wixii aad haysato ayaad ku qasi kartaa asxaabe. muhiim maahan. waxaan kusoo darsanaynaa qaado iyo bar sokor ah. qaado iyo bar sokor ayaan kusoo daray.
marka soo qasanayna. Mashiinka daboolkiisa inaan saara isku daya daboolkaas ayadaa wadato, waayo marka hore waxa aa qasaysid way kala faniinayaan, marka saysan maaragtay ayada naftirkeeda hataa isku wasaqaynin difaacay u noqonaysaa. Marka adiga 5 daqiiqo camal ayaan qasayaa, waqti dheer qasima, waayo kareenka haddaa qasida ka badisid wuxuu u kala baxaa biyo iyo subag. Ma aqaan wax laga sameeyo, biyo iyo subag u kala baxaa, marka inaad qasida ka badin 5 daqiiqo xoog ah hal mar u qastid. Noo jeedin makiinada waa boobsiye waa dheereeyay si ay maaragtay degdeg igu qasto. waa ka daminay, hadda waa fiirinaynaa sida ay noo noqotay. Waxaan rajeynayaa inuu noo adkaado darajadii aan ka rabnay, inuu noo gaaro ayaan rajeynayaa asxaabe. Isla socod wanaagsan. Waa kaasa ya salaam. Isku haysta maaragtaa qaadada xataa waa ka foqilayahay. Marka hadda waxaan soo diyaarsanaynaa waxyaabihii aan soo dhadhaweysanaynaa si maaragtay aan keegeeni u diyaarsano. Waa kana halkan waxaan kusoo diyaarsada kafeygii, karameeladii, saxankii, kareemkii aan soo qasnayna waa kaasa. Saxankan waxaan kusoo diyaarsada cadaanka ah inaan buskudka saarto. Kaa kalena waa oo dhaladana waa kii maaragtay aan ku sameysan lahaa macmacaanka. Buskudkina waa kaasa, buskudka soo jaranayna asxaabe. Saxanka waxaan usoo diyaarsada cadaanka inaan buskudka saarto. Marka isla socod wanaagsan asxaabe. Intaan wixii ka dambeeya waxaan rabaa inaan si degan u fiirsataan, waayo hadal idinku ma daali karo. Hadalka badanna wax faa'iido ma lahan. Hadal yar iyo hawl badan aan isku ognaa insha Allah. Kareenkaas baaquliga aan idin tusinayo waxaan uga reebtay inaan hadhow wejiga ku sharaxdo, sida aan yeeli doono waa arkaysiin. Kareenka ayaan hadda waxaan ku darsanayaa wax yar oo karameelo ah oo maaragtay aan rabo inaan dhadhanka bisaan aan dhadhan ugu yeelo. Buskudka ayaan ku daareynaa. Markaa ku daareyna waa inaan boobsiinaa oo aanan la sugin intuu maaragtay biyaha uu ka dhergo, waayo ma u baahna qoyaan badan, ma u baahna 5 daqiiqo intuu jilco maaragtay farahaaga ku jajabaya. Marka dabaqi koowaad ayaan soo saaranaynaa. Isla socod wanaagsan asxaabe.
xabadaas waxaan u kala jebiyey meel yaroo bannaan aan ku dhamaystiranaa. Kareenka ayaan hadda soo saaraneynaa asxaabey. Dabaqa koowaad wax yaroo kareem ayaan saaraneynaa. Marka aan marineynana waa inaan si tartiib ah ula tacaamulnaa, sababtoo ah keega maxaa la dhahaa buskudka intuu jilcay waxaan ku dhahaa ma taaba kartid. Waxaan iska kala warwareejinaa si kaamirada full aad ugu aragtaan asxaabey. Waayo mararka qaar way adag tahay inaan wixiyo kaamil ah kaamirada ku aadi adoo isdhahay waxaa arkaysaa dee kula tagtay ilowday. Kaamirada ayadana la ilaaliyay rabtaa, wax la sameynayana in la ilaaliyay rabtaa. Marka waa la dadaalaa insha Allah. Ujeedana umaleynaa tartiib aan usoo marinoyaa. Dabaqi koowaad waa dhameysanay. Dabaqi labaad ayaan bilaabaneynaa. Qaybtii labaad. Asxaabey buskudkan laba noocna waa loo sameeyaa. Adoon qoynina kareemkaaga waa saari kartaa, sababtoo ah qoyaan maba doonaba. Waa buskud aad u jilicsan. Marka aniga marmarka qaar anoon qoynin aan ku sameeyaa, marka anaa idinla soo wadaagi doono. Waayo qoyaanba uma baahna. Kareenka caadiga haddii la saaro iska qoyaya. Marka insha Allah mar kaleeta ayaan naqshada kale aan u sameysto. Waayo naqshadan oo lagu soo daardaarayo kafeega macruuf waaye. Laakiin naqshada kaleeto insha Allah anaa mar kale idin tusinayo. Waayo maba u baahnaba qoyaan badan. Xabadan kusoo sameysanayo kaleeto qayb yara waxaa moodaa inay bannaan tahay. Sorry asxaabey, kaamiradii waxaa iga dhacay taleefankii dhammaan wax ku duubaa. Qaybtii u dambeysay waa soo dhameystiranay. Waxaa kareenka qaybta u dambeysay markasta waa loo badiyaa si dabaq oo u noqdo maxaa la dhahaa dabaqad sareyso oo yacni buuran ma aqaana wallahi. Af Soomaaliga marmarka qaar jiira iga gala. Kareenka waa loogu roonaadaa yacni qaybta u dambeysay keega.
ujeediin kareenka inaan u badinayo waayo qaybta u sareysa waxaa la rabaa inuu kareenka maaragtay u bato oo cadaankiisa u muuqdo. waa isla soo simayaa wejiga. waxaa isku dayaa kareenka inaan si fiican iskula simo oosan meel buur iyo meel goda uusan iga noqonin, waayo karameelada hadhow markaan korka uga shubo dhinaca godka ah ay isugu aruureysaa, ma fahanti. marka saysan hal dhinac keliya iga badan karameelada oo si isla siman ay igula ekaato. waxaan rabaa inaan maaragtay aan wejiga simo siro siman oo qurux badan aan kasoo dhigaa insha allah. geesaha ayaan waxaan ka qaadaa maaragtay kareenka zaa'idka ah waayo saxanka ugu buuxsamay. saxanka maasha allah saxan yaroo ahaa aan ku sameynayo maaragtay keega uu buuxsamay. marka geesihii maaragtay waxay siyaadada ah ayaan ka qaadaa. geesahana waa soo nadiifina, waa inaan soo tirtirno intaanaan karameelada ku shubano, waayo saxankii markaa keega sameeyay bacdi waa in geesaas laga tiraa. nadaafaduna waa muhiim, quruxday ka qayb qaadanaysa. hadda wixii ku yaallo dhan haddaan ku dhaafi lahaa waxa aan sameeyey quruxdoodana ma muuqateen, nadaafadoodana ma muuqateen. marka adoo wixii sameynayana waxaa la rabaa nadaafadiina dhinac inaad ka wadid oo waxaa soo sameyso lagu qanco quruxdooda iyo nadaafadooda. waa kana karameeladii ayaan soo qaadanay asxaabay. karameelada markaa ku shubayso waa inaad qaadada saa uga hoos u marisaa, sababtoo haddaad toos ugu shubto kareenkay kaa dhaawacaysaa meesha aad soo marsatay keega. marka mar kasta karameeladan waana qabow, waa soo qaboojiyey. ayada markaan sameynaya idin maan tusin waayo hadda ka hor aan soo geliyey videoga oo dheeraana. haddaan dhaha karameeladii aan sameynaa wixii dhan hal mar aan soo wada gelina, laakiin karameelada dadkii aan arkin youtube-kayga way ku jirtaa videoyadii hore aan soo geliyey. fadlan dib u daawo oo si fiican uga faa'iideyso. karameelada wax kastay ku anfacaysaa, keeg kastaa saara kartaa, shardi ma ahan halkee keliya laguma shaabadeynin. marka asxaabay karameelada markaan ku shubay kuma wada shubin, xoogaa yaraan ka reebay. waxaan isku dayaa inaan maaragtay kala gaarsiiyo saxanka gees ilaa ka gees tartiib, anoo maaragtay kareenkii hoosena qaadada gaarsiinin ayaan waxaan isku dayaa inaan karameeladiina si naxariis leh aan usoo kala gaarsiiyo. okay, waa soo gaarsiiyey, wax yar geesa iga dhiman, saasaan ugu shubanayaa. qayb qaybaa loogu shubtaa oo maaragtay laysu kala gaarsiiyo. haddaa hal mar ku wada shubto iyo kuu kala gaari weyso wareer waay, ama aa kala gaarsii weyso qaadadii maaragtay way kareenka kaa soo raacraaco. markaan hadda waa kala gaarsiiyo ujeedin. socod wanaagsan waa kaasa. yaa salaam, caraftiisaan ku dhaha waaba sugi lahayba intuu ka qaboobo. bacdaas waxaan kusoo shubtay bacdi cilaanka waaye loogu talagala. bacdi baastadan sidii maaragtay cilaankii camal usoo sameeyey, bacdi cilaanka lagu sameyna camal. waxaan kusoo shubtay kareenkii caddaay oo hadaaya aan ka reebana baaquliga yarkaa idinku tusinayay aan kusoo shubtay. shardi maaha inaa bacdaas ku shubatay, laakiin waa laysbasareyna si maaragtay waxaad haysanin aadan ugu baahanin bedelkiisi waa inaa heshaa. markaasaan kusoo shubtay.
waxaan isku dayaa inaan xariijin u yeelo ama liid qofba siduu u yaqaano. isla socdo kabacdi sida aan rabo inaan ka sameeyo ila socdo asxaabe. Si yaroo qurux badan aan ka dhigayaa inaan idinkaga hordhaco ma rabe. waxaan isku dayaa inaan toosiyo. cilaan ma saari aqaane, dadka cilaanka saari yaqaana u fududaya inaan toosiyo aan isku dayaa insha Allah. xabad qalooc xabad dheeraan ka dhigay waa ujeedeen. ha igu qoslinina labes asxaabe. istakiinaan soo qaatay nadiif ah oo aan weli la isticmaalin, saas oo ugu jiidaya. marka hore hal dhinac hal jiha aan wada jiidaya waa ujeedeen. ya salaam, soo noqonaa waa aragtiin maasha Allah. haddana cagsigeeda yacni kasoo horjeedkeeda haddana kusoo jiidana waa kaasa. ya salaam, maasha Allah, tabaarakallah. sida u qurux batay keega waa kaasa asxaabe. maasha Allah, maasha Allah. quruxdiisa waa ujeednaa insha Allah. quruxdiisa waxaan rajeynaa macaantiisana maaragtay inaa ila dhadhami doonteen. aniga already waa aqaanaa, la iga sheekey maayo. waa keeg fudud macaan. waa kaasaa talaajadan gashanay. bacda aan talaajada kasoo bixinay waa kanaasaanu noo noqda asxaabe. insha Allah, tabaarakallah asxaabe. waa kaasaa keegeen baara idinka maqnaa waa idinku soo noqday. waa goosaneynaa waa idin tusinaa sida markaan talaajada kasoo bixiyo bacdi saasuu noo noqday. isla socod wanaagsan. ya salaam, ya salaam asxaabe. والله waxaan ku dhahay weli xataa si fiican ma qaboobin. nus saac camal oo ku jiro talaajada. waxaa loogu talagalay 4 saac camal inuu ku jiro ugu yaraan. laakiin aniga maba sugi kari. waxa markaad taqaanid ma sugi kartid sooba. inaa aniga cunana waa rabaa oo maaragtay dhadhankiisii aan ka war doono wixii aan samaystay. asxaabteydana inaan u dhadhamiyaan rabaa. inaan idin tuso sida uu noqdayna waa rabaa. mana rabo maaragtay kiliibkii inaan idinkala soo daaho. waan idiin soo dedejiyey bal si aa uga faa'iidaysataan insha Allah asxaabe. soo socdaan. waxaan ku dayaa baqaadadaas inay qaadayso una maleemayo. waa iga diiday maya. waa diiday wixii qaadadan la iguma talagelane. waa soo bedeleynaa insha Allah. markastaba jabka ugu horeeya marka aad qaadaysid wuu kaa jajabaa. laakiin jabka labaada maasha Allah si qurux badan kugu soo maaragtay kugu soo baxay. qaadadan weyn aan soo qaatay asxaabe. kana marka jabkii koowaad uu jajabay. laakiin jabkii labaad ka si qurux badan u soo baxay. markastana keega saxamadan lagu sameeyo saaso. jabka koowaad oo ku dhibaa laakiin jabka labaad si fiican kugu soo baxay. ya salaam, ya salaam, ya salaam, ya salaam. والله asxaabteyda waa iiga duceynaysiin. soo tijaabiya iyo macaan oo isku darsaday. waxaan idinka rajeynaa sida idinkaga soo dhisay inaa iiga dhisi doontiin. like commentiga sheerta asxaabay. hayga baqiilinina. waa walaashin warda oo idin leh waan u baahanahay dhiirigelintiina. like subscribe iyo sheerta iyo commentiga waxay ii tahay dhiirigelin. please waxaa iga codsi ah inaa maaragtay asxaabtiina la wadaagtaan commentiga iyo sheerta. fi amaan Allah. sarag dambe oo xiiso leh. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin. fi amaan Allah asxaabe. aragti dambe oo xiiso leh.